السلام عليكم ورحمة الله وبركاته داوديال برنامجك واسيب بلاوني برنامج هذا مرة نو بلاون دونو تنس ترافان جوجنا أوروكا سوماليسكا فورالدرا أن مودش مول فرينين طبعا أيو لايف واي لايف كاسا مارت مادام برنامج لوكالي هاي الدنيا نو من دونا هبني يو الميو أديك رين dadweynihii sanadkii horena saan oo kale ahayd 28 bishii inkastoo taas ahayd abaalmarintii abaalfeest marka hadda dadkii waa soo bilowdeen waa soo galgaleen waqtisalaan بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ولد السلام الله عشان الصوماليات مالك استوى جوتان با سلام كدب أدبر ما صنت هاي عبد القادر سوا وكسر الله محمد الله تي في كلسن تي في maanta waxaan meesha isugu nimid sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee ku nool xaafadahan aan deganahay dadka Soomaaliyeed ku badan yihiin waa dhalinyarada waxbarashadoodii maaragtay ku dhex jira waxaanu ku casuunay oo maanta meeshan diyaar ku ah oo inay dhalinyarada kale ay ku daydaan ku diyaar ah dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku guuleystay meeqaan fiicanna ka gaaray waxbarashadoodii hadday noqoto caafimaadka dhakhaatiir iyo barofesorada noo jooga Soomaaliyeed hadday noqoto dhinaca shaqada iyo shaqaalaha waxaa jira shakhsiyaad u shaqeeya dawladda oo dhalinyarada ka caawinaya sidii ay u heli lahaayeen shaqooyin qaybaha kala duwan ee maaragtay cilmiga dhalinyarada Soomaaliyeed oo baratay meesha joogta maanta iyagaa wax isu sheegaya iyagaa isu khudbaynaya waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay markii ugu horreysay qabataan mi arrintan markii ugu horreysay ma aha waa dhowr mar hore ayaan samaynay mana noqonaysa markii ugu dambeysay marka waxaan leenahay bulshada Soomaaliyeed isku dayda idinku ishaga idinku waxa idaan qabsanay idinma qabanayso aad iyo aad loo maasantahay aadan ku salaamayna Ibrahim intaan la bilaabina rabaa inaan kaliya sii qaado daawadayaal hadda shaashada waxa ka soo muuqday almo oo wax badan u qabatay Soomaalida degan wadankan Sweden waxayna qayb ka tahay martida ka soo qayb gashay munaasabadan almo adduunka tacliisa laga daawanayo munaasabadan caruurta waa hambalyan leenahay Soomaa gudoomiye intaysan bilaaban salaaman dhamaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay ka daawanayaan aad iyo aad dhamaan ummadda Soomaaliyeed waa salaam meel kasta naga daawa qaasatan dadka degan Stockholm iyo nawaaxigeeda Soomaali weyn oo dhan السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. محمد سلام انت بالله. هذا أورك ما شاء الله. برنامج كوبانايو أما إيفنت كوبانايو. Hej och välkomna till årets inspirationskväll för unga somalier i området. Dagens anordnare av eventet är Somaliska föräldrar och modersmålsföreningen som har bas här i Tensta. Vi vill först och främst be om ursäkt för det sena start av vårt evenemang. Däremot vill vi säga hjärtligt välkomna till er alla. Jag kommer att prata svenska under kvällen och det kommer även göra våra talare som kommer hit idag. Det har varit lite förändringar i antalet personer som skulle närvara och vilka det är som är här. Så vi vill be om ursäkt för det också. Men inshallah innan vi börjar och fortsätter vårt program så vill jag säga hjärtligt välkommen Konsol Wow, Sheikh Abdullahi Ali Musa och Nobila Bidono Quran Karim inshallah. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم والحمد لله رب العالمين. أما بعد ولا ليال وعدي وحو كل يهي إلهي أنك برنا مركب يلقصوا عن شغلنا إلهي أنك عبصنا هدي له اتقوا الله حيثما كنت وعدي خود من مجر إنه وحوي يلقصوا عن شغلتي إلهي كبر أن تعبد الله إلهي عبد كأنك تراه سيد على أركعه فإن لم تكن تراه أذو هداد أركهين فإنه يراك سقعك أركعه marka wacdi intaasuu ku dhanyahay alla meeshaan joogno aan uga baqno annagana maaragtay ittaqullaha xayثumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata tamxuuha ilaahay aan ka baqno haddaad ilaahay ka baqdina meel kastoo aad joogto ittaqullaha xayثumaa kunt wa atbici sayi'ata alxasanata haddii dembi kaa dhaco kulli bini aadam baan hoo dabaamaynaay haddii dembi naga dhaco waxaana laga rabaa inaan ilaahay u toobad keeno astaqfirullah dembigaaga ilaahay wuu dhaafahayaa ilaahayna wuxuu awoodaa sayi-aadkaaga inuu xasanaad kugu bedelo marka ilaahay sayi-aadkayga iyo dunuubtayada xasanaad ha noogu bedelo wa khaaliqi nnaasa bikhuluqin xasan dadkana waxaa laga rabaa muslim iyo gaalo meel kastoo aan joogno inaan dadka dabeecad wanaagsan iyo akhlaaq wanaagsan aan dadka kula noqono aan shaqaysano aan waxbaranno akhlaaq aan leenahay islaamka wanaagiisu kaas waayo islaamka waxaa laga dhaxlay wanaag waxbarasho aqoon shaqo ma ahan tuugo ma ahan khayaano ma ahan been islaamku shuqul kuma laha marka kulligan waxaan nahay dad muslimiina waxaan nahay dad ilaahay ka baqahaya yaa ayuha aladiina aamanuu taqullaha haddii lagu yidhaahdo wacdi kuu dhimani ma jiro ilaah iyo rasuulkiisa dadka rumeeyey ayaa leeyahy yaa waay dadkaas waa annaga ilaah iyo rasuulkiisaan rumaynay ilaahay baan ka baqaynaa wax naga hadlaysana aakhirana waxaan sugaynaa jannatul firdows ilaahay inuu kulmiyo ayaan ilaahay ka baryaynaa adduunkan waxaan jecelnahay ilaahayna ka baryaynaa nolol wanaagsan iyo farxad iyo khayr inaan ku noolaano marka ilaahay aan isku aya cafiyo shirka iyagana shirka ay qaba allah ka dhigo wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Jag glömde att presentera mig själv lite tidigare, men mitt namn är Ayan Mehdi och jag har dels varit en medlem när jag var yngre i den här föreningen, men just nu studerar jag också, så jag hoppas att det här evenemanget blir av nytta för mig själv. Nu vill jag välkomna föreningens ordförande Ibrahim Sheikh Mohammed. Välkommen upp. بعد ما صلت يا مهدي خير بدل الله تسيو. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan aad iyo aad idinka raali gelinaynaa sida maaragtay ayaan inoo sheegtay waqtiga oo aad iyo aad inooga dahay programka waqtigaan ugu talagalay 1 saac ayay dhaaftay waqtiga hadda aan bilownay sida ayaan inoo sheegtay taas waxay nagu khasabtay waxoogaa yar inaan isbedel ku sameyno oo programka oo markii hore 3 qaybood ahaa aan isku dhex jajabino si uu 2 qaybood u noqdo waa raaligelintaas xogaayeen waxaan ka cuurdaaranaynaa oo kaleeto maanta dhalinyaradii aan ugu talagalnay barnaamijkan inay ka faa'iidaystaan in badan oo kamidii meesha kama muuqato way naga maqan yihiin haba ugu badnaadeen inta maqan dhalinyaradii wiilasha waxaan u malaynayaa waxaa la maqlay waxaa jiri doona tartan gabdhaha iyo wiilasha marka wiilashu waxaan u malaynayaa gabdhaha ay ka badeenoo waxaan meelahaas naga dhegeysan doonaa baan u malaynayaa waxay isleeyihiin yani maaragtay waa iska kaftarintaas aad iyo aad baan idinku mahad celinayaa the ruled endo the so många som har kommit
iyadoo weliba intaasoo badan ay naga maqan yihiin. barnaamijkeena maanta wuxuu ku saabsan yahay waa isbaraxuun oo dhalinyarada aan u samaynay. waxaan isugu nimidna waxa weeye maxaynu inagu isu sheegi karnaa oo aynaan u baahnayn inaynu cid kale ka dhegaysano, inaan dowlad ka dhegaysano, inaan ururo kale ka dhegaysano, inaan madax iyo mas-uuliyiin ka dhegaysano. aqoon intee leeg baynu inagu leenahay Soomaali haddaan nahay oo aynu inagu isaga faa'iideyn karnaa. walilaahi alxamdu maanta waxa ay noo fadhiya oo noogu talagalay barnaamijkan inay uga faa'iideeyaan dhallinyaradooda, dhalinyaro Soomaaliyeed oo intooda badan ama dhaha dhammaantooda ku dhashay magaaladan iyo waddankan aan degannahay iyo weliba xaafadahan aan degannahay, mutacalimiin ah, jaamiciyiin ah, waqtigoodana u soo horay si volunteer ah iyo maxaan ku dhahay mutadawacnimo ah inay walaalahooda kale uga faa'iideeyaan sidii ilaahay ugu fududeeyey ay ugu hirgashay inay intay waxbarashadooda kamilaan ku shaqaystaan, ilaahayna siiye capacity ay maanta kusoo hor istaagaan dhalinyaro ka yaryar oo walaaladooda oo ay u noqdaan guide iyo deegleedada. aad iyo aad bay farxad noogu tahay inaan haysano dad heerkaas uu gaadhsiisan yahay aqoontooda iyo awoodooda. waa wax lagu faano, alxamdulilah rabbilcaalamiin. waxaana hubaa inta hadda aada wejiyadooda arki doontaan ama idin hor fadhida inaynan ku ekayn dhalinyarada Soomaaliyeed heer ay maanta noqdaan forelesane oo luuqaday doonaan weliba ay wax ugu akhriyaan inay ka tiro badan yihiin 1,000 jeer. inta maanta loo dartood loo yimid in loo faa'iideeyo meesha u fadhidana waxaan u rajaynayaa in ay qof waliba qof uu ka dhigto example. hebel waxaasuu maanta ka sheekeeyey, waxaasuu bartay, waxaasuu yahay. waa inaan jidkaas isboorkaas ama jidkaa uu hebel darajada ku gaaray oo maanta lagu qiimeeyey oo sharafta iyo ciisada ku gaaray in maanta mid ka mid a ururada Soomaaliyeed ee waddanka ka jira mid ka mid a kuwa ugu waaweyn event noocana uu sameeyey inta lagu casuumay inuu dhalinyaro wax baranaysa oo wax ka dhaadhacsiiyo. waa in yoolkaygu halkaa ahaada dariinkaas inaan dhammaanteed wada qaadanaa. aad iyo aad waxaan ugu mahadcelinayaa dhalinyarada Soomaaliyeed ee aqoontaas leh ee aan u hanweynahay oo waqtigooda qaaliga noo soo huray oo aan shuruud nagu xidhin. laga yaabo in badan weliba hawlo ay maaragtay muddo badan ku taamayeen ama qorsheeyeen inay inta soo kansaleen ay waqtigooda usoo hureen inay walaaladooda faa'iideeyaan. madaxda sharafta leh ee kala duwan ee meesha fadhida ee rag iyo dumarba leh iyaguna waxaan ogahay weliba caawa iyo maalmaha weyga dhiga inay badan yihiin barnaamijyada iyo meelaha laga casuumo. qaar badan anigaba ogahay ayaa jira. dhammaantiin waad mahadsantihiin. wixii la sheegi lahaa wuu dambeeyaa. inaan barnaamijka inoo furo baan u soo istaagay inaan ka faa'iidaysano caawa waxa meeshaas aan isu sheegi doono. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Tack så jättemycket. Som Ibrahim har pratat lite om så har vi byggt vårt program och istället för att ha 3 delar så blir programmet 2 delar. Vi kommer att börja med den första delen, men innan dess så vill jag välkomna till scenen Habane Hassan som är ordförande för Somaliska riksförbundet. Välkommen. السلام عليكم. سيد الله الشيخ المقعد وحبان حسن بدونيها وركز بهايسية من الصومال السويدن. أيام وحنا نوشكتين على السويدش كهذا نقلت. لكن واحد كان فريدو صومالي. لأن يرى مدة وين هذا المركب وين سكول يجي لقطة فويو إلا حفيو. يدخل كنا. مركب وحاس كده ما أهلنا نقول كهذا شنا أيام. يا اسكوميت ما marka maanta barnaamijka oo ku saabsan dhalinyaro dhiirigelinaysa aniga aad iyo aad baan u xiiseynaya runtii. horta dhalinyarada fashtoonaya Soomaaliska alla fashtoo Soomaaliska marka waxaa rabay dhalinyaro dhiirigelinaysa muhiimad baa leedahay. laakiin anigu waxaa jeclaan lahaa shakhsiyan daktarra halkaan fadhiya
aniga laftigay xoogaa yar inaan rashiid u jooga rashiid muuse oo gadaashiisa fadhiya xoogaa bishuulid maxay tahay horta waxa dhiirigelinta inaad ummadda soomaalida u gabatid horumarkaaga aad la qaybsatid maxay tahay inta taariikh ويطرون بانيلka fadhiisanayna soo ya commerce bar markay dakhtara hadlayaan anigana waxay ku darsanayaan soo gudoomiye waxay ka mid tahay wadadii aan doortay shakhsiyan ururkana 95 baa la asaasay si loo asaasay taariikhdeedii gudoomiye aniga horeeya fadhiyo abdaasiskeedii taariikh dheer ururka Soomaaliya ururkana waxaa maleynaa sanad ama 2 sano ka dambeeyay Soma marka waa iska maqaano intaas anaga walaalkii weynaanahay waxaana muhiimka tahay danta Soomaaliyeed in loo shaqeeyo danta Soomaaliyeedna waxa weeye Soomaalida problem baa dhacay annaga resultaadkii waxaan nahay problemkaas dhacay oo Sweden ma keenay wadankeena aad nooga soo fogay maamuun waa iga qarsoon waxaan leeyahay resultaadka marka inta la keenay isna ma ahayn wax anaga aan dooranay beedahanda marka inta nimid marka aniga ciyaal ahaa kuwi orgaano 7 jir laakiin hooyooyinkeena yimid wax la soo celiyay burbur iyo kala qaybsi marka ururka spice markii la asaasay ururinta ummadda Soomaaliyeed bay ururinta kadib marxalado badan ku soo maray ومر waxaa qabanayay group interest gaarota dhici karta waxaa mar imanayay nin aan jawiga iyo waxa markaas magaalada ka socda aan fahansanayn oo asagana haduuro madaxa adkaado wixiisa uu iska watay laakiin ay ururka waxaa maraynaa maanta meel aad u wanaagsan ummadda Soomaalida after shucubta ama 28 sano kadib way bislaatay bisel aniga waxa bisel waxa kamida marka aniga 16 sano jiray yasbeelada kubadda hay'ad kubadda marka 18 ka soo dhawaaday dibiqon 3 oo dollar ayaa dhigay laakiin dhibaatada ay hooyadii aabbi u hayeen waxa kamida markii gobol aaday tudeeri cabsi waalidka ay ka qabeen culture-ka iyo wadanka deganahay ilbaabkina ka baxo ay diideen marka koob badan baa saas uga haray maanta 13 jirkiina baxay koob dhab ku magaaduro Ameerika tagay health qal kooxdiisu raacaya marka waxay taatusaysaa hooyooyinkeena abooyinkeena baqidii iyo culayskii hayaa ka degay jawgii bay fahmeen cabsidii marka mas'uuliyad baa jirto ilmaha waa loo qorsheynayaa inay iska cunugan in la iska qaato iska haysta maaha anigana boorland aan degnaa muura wala basa ee hooyada ka walwalsay koobka ka hari jiray hooyadii oo runtii laakiin maxaa ka faa'iiday kuwa yaryara donba yadda ingireen marka ayaga markay soo weynaan koobka bilaabeen weliba mid ka mid ah walaalahay wuxuu alsvenskan da'diisa waxa ka wada Landsberg Swedish Landsberg da'diisu ciyaaray oo doonan aan tahay marka taa waxa weeye bisay ururka sidaas oo kale ee go'uli ka noqdo marka ururka isbahaysiga meel fiican buu maraya dakhtaraana intuu Soomaaliya soo baxday PhD aan haysanaa maxaa la yiraahdaa dad wax barto far badan baa jooga marka in ururyadeenna ururka isbahaysiga waa lobbying group waa maqashay Soomaaliya lobbying group waa ummadiisa dadka ka hormar dhaawaca qaata dadkii dhibaatada ka ceeriya isbaarada wadada dhinaca ka qaada wax qabadka waxa iska la ururiyada marka ururka waalidiinta dhammaan muddo isku raacsan tahay inay hool aad u qurux badan wadaan waana ugu mahadcelinayna insha Allah gudoomiye Ibrahim gudoomiyihiisa iyo guddiga dhammaan hawsha quruxda badan wadaan marka annaga rex waxa u taaganahay dhiirigelinta ururyada marka ururka waalidiinta oo maanta suuqan keenay aad buu u mahadsan yahay runtii anoo marka ku dheeraan qissa iyo dhiirigelin dib baan ka dhiganahay xanaanka insha Allah aad buu mahadsan yahay Tack så jättemycket. Han får hans barnaamijka loogu soo biri doono
Jag kommer att välkomna nästa person som är Rashid Abdi Mohammed som representerar stadsdelen Skånga-Tensta, som kommer att prata lite med oss. Varsågod. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا مقعي هذا رشيد عبد محمد. معكم مقعي رشيد محمد وحامد فضياء استاذ ديرك إكسبومنتينز. أنا فضياء اس دي بنس بارتية بلاد النكاحي كانت تسمى ميوريتيت كان. وحا فرحات رمانتا أنا كسوق يقدروه كلهم كان آدي على طرق من يوختر طرق والدينتا معلمينتا صوماليات ururkan uu ku saabsan yahay sidii loo dhiirigelin lahaa dhalinyarada Soomaaliyeed oo loogu magac daray Unga Soomaaliya Inspira. Waxaan aad iyo aad hadana ugu faraxsanahay in ururka in paneelkan ay soo fadhiisan doonaan dhalinyaro Soomaaliyeed ee wax baratay oo ay kala yihiin maaragtay aqoontooda kala tahay STL kale abukaat iyo wixii lamid waana wax ugu farxo waayo haddii aan fiirino oon dib ugu noqdo waqtigii annaga aan waddanka nimaday Soomaalida badana waxay timid 90kii laakiin aniga aan ka helay dadka waana fadhiya waxaan nimid 80kii sanadkii 1980kii waagaas waxaan u badnay dhalinyaro iyo dad kale xataa waaweyn laakiin dhammaanteen waxaan dhalinyaro aad iyo aad aqoontooda aad u sareyso waayo maadaama aan ku soo barno waddankii aqoonteena aad u sareysay waxaa kaloo jira xataa dad barar badan oo jaamacado ka soo dhigtay waddankii amaba wadamada reer Yurubta maray laakiin dhibkan haysta wuxuu ahaa in aanan maaragtay jaamacadaha Sweden aanan geli karin waagaas sababtoo ah waxaa jiray ma jirin waxa hadda la yiraahdo bedimering ee lagu sameynayo shahaadooyinka iyo maaragtay lala yimaado waddanka laga soo galo dib ayay u samaysatay laakiin alxamdulillah maadaama aqoonteeni fiicneed rag meeshan fadhiya ay gula jiraan luqadda SFIga ayaa dadkoo dhan wada bilaabaan 6 bil bay lagu qaadatay kadibna waxay ahayd waddankan waxaa ka jiray wax la yiraahdo isgarabeen garab shaqo isku siin iyo waxyaabo badan laakiin annaga waxaan noqonay dadkii ka qayb galay waxbarashada xirfadaha oo waagaas waxaa jira wax la yiraahdo AMO Center oo loogu talagalay dadka in maartay warshadaha iyo meelaha ka shaqeeyaan alxamdulillah waa ku guuleysanay shaqooyinkeena waa qabsanay isla markaasna dadkii waxay bilaabeen waxa soo bilmatay Soomaalida 90 kadib marka reeraha la dhistay waa la dadaalay marka anigii groupkayga waxaan noqonay dadkii maartay hadda xataa inay jiraan laga yaabaa dad markaas xaasas ahaa jaamacadda markaas bilaabay alxamdulillah waa ku guuleysanay annaga naftarkeena jaamacadii waa ka baxnay oo maaragtay maanta waxaan u shaqeeyaa Stockholm Stad waxaan u shaqeeyaa xafiiska ceyrta ee Bruma NHF marka waxaa muhiim ah in dhalinyarada ay ka faa'iidaysto maanta waqtiga lagu jiro waxbarashada inay ka fududahay inay jiraan dad caawinaya dad garab siinaya dad aqoontii la fiirinaya tentaha la fiirinaya ama la fiirinaya maaragtay casharada marka waxaan rabaa in aan wax yar ayana yimiday halkan maanta haddii la fiiriyo ayaa dhaweyta waxaan ka fiirsanaya Swaris Radio oo waxaan Swaris Telmo waxaa halkaas laga sheegay in dhammaantood dadkii 90kii soo galay 80% ay shaqo haystaan khaasatan dadka dhalinyaradooda ilaa 30 ay jaamacado ka wada baxeen isla markaana dadka shaqo la'aanta ee Bosniyiinta inay ka yihiin dadka Sweden u dhashay inay percentage-gooda ka yihiin marka waa wax muhiim ah waxbarashada waana loo baahan yahay inaan isku dhiirigelino kaliya wax ku qaban karno ama wax ku qabsan karno haddii la yiraahdo ku shaqaysa kaliya maaha waa inaan xataa aan heer sare ka sii gaarnaa maanta annaga waa lagu yaryihiin sheefafka Stockholm haddii aan fiiriyo aniga aan ka bilaay waa 4 qof oo maaragtay sheefkaas social service ama fushadkaas ama lignand waa inaan ka sii gudubnaa heerkaas heer sheefaf aan noqonaa aan abdeena isku xifnaan noqonaa aan bulshada ka qayb qaadanaa si aan uga dhex muuqano waayo meelaha lagu go'aanka lagu gaaray waa meelaha heerahaas heerkaas
midda kale waxaan rabaa inaan idin sheego ururkan Soomaaliska maaragtay ururka waalidiinta iyo macallimiinta inuu yahay ururka maadaama aan fadhiyo istaasdeelka ugu firfircoon howlaha uu qabta kaliya lexiyada kaliya maaha hataa wuxuu la galaa projectin familia centralen oo istaasdeelka ay madax ka tahay ayaan dhaweetaan la kulmay ammaan weyn ay usoo jeedinayeen kooxda kaliya ay ka faa'iidaysatay projectigaas ay tahay ummadda Soomaaliyeed oo carruurta yar haysata si fiican uga faa'iidaysteen waxa kale jira wax kale aan ka faa'iidaysan oo ay tilmaameen laakiin ogaada ururka howl weyn ayuu u hayaa ummadda sida ka warqabtaan midda kalena waxaa la gaaray waqtigii doorashada howlaha aan ka qabanay iyo sidaan u istaagnay ummadda Soomaaliyeed xaafadan degan dhammaan waxaa umaleyn inta badan ay ka warqabaan marka in sanadkan la istaago oo la codeeyo nin waliba oo Soomaaliya xaq u leh inuu codeeyo ama qof waliba gabar Soomaali aween inaa codeysaan hadalkayga ma rabo inaan ku dheeraado intaasaan kusoo gabagabeynayaa waan mahadsantiin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذه أدوات سنتهاي. إن شاء الله أنت على الجود قليل panelك. أما إن الفيديو يعني panel diskussion så kommer jag att berätta vilka som kommer ta del av den här paneldiskussionen. Vi kommer att ha Naim Hameshia som är en ST-läkare inom allmänmedicin. Vi har även Ahmed Daoud, även han är ST-läkare i fysiologi. Jag hoppas jag har det här i Karolinska. Vi har Jihan Mohammed som är gynekologläkare och jobbar i Danderyd. Vi har Mehdi Mohammed, ST-läkare allmänmedicin. Vi kommer att ha Nerima Abdulqadir som är akutläkare vid Karolinska och Rashid Mose som är SO-lärare som kommer att ha hand om utbildning i den här diskussionen och Habana inshallah Habana Hassan som ni redan hör härifrån. Så jag vill välkomna er alla upp på scen inshallah så ska vi börja inom kort. Välkomna. daawadayaal barnaamijka inta la socoto waxaan ka cudur daaranaynaa jawaabta aad noo soo qoraysaan hadal ma soo dhexgelin karo ma ka jawaabi karo laakiin asxaabteydii iyo daawadayaasha dhammaan waxaan ka codsanayaa maadaama uu yahay barnaamijkan barnaamij aad looga faa'iidayo Soomaalida inaad sii sheer gareysaan oo dadka Soomaalida si uga sii faa'iidaystaan waxaan kaloo ka cudur daaranaynaa haddii luqad kale eedan aqoon oo Swedish ah anagoo hadhow gadaal idinkaga turjuwaan doono taasna hadhow waxaan kusoo qori doonaa text gabadha waxay Swedishka ku hadlayso dhaqaatiir iyo wax karad ee hadda kor soo wada fariistay waxaan u bilaabanayo barnaamijka qaybtii labaad si toos ah ugu mahad celinaynaa asxaab badan wax soo qorayso asxaabta kama jawaabi karo marka waa suxufisalo oo idin la mahadsantiin daawashada aan daawataan meesha waa tenista taraf soo qeybgalayaasha hadda kuwaas oo idin wada muuqdaan barnaamijka noo bilaaban doono waa mahadsantiin gordhow u diyaar garooba barnaamijka qaybta labaad markaan waxaan ku jeedinayaa dadweynaha oo aan rabo intay bilaabanayso aan sii dhex galno inta la sugayo tiknikada بانيلك انت سوي انت اللي سوي دوينها لسيها ولا بعد عسيس دوينها لسيها عباس وهذا محل ما شاء الله امان دوينها في سنه برنامج كان واللايف حوالي dhiirigelinta dhalinyarada Soomaaliyeed ee magaalada Stockholm ee dalka Sweden ku soo dhawaada waxa lagu dhiirigelinayaa dhalinyarada tan inay dadkooda inay wax bartaan ummadoodana wax u taraan wadankoodana wax u taraan iyaguna wax isu taraan arrintaas ayaa lagu dhiirigelinayaa waa arrin aad iyo aad u wanaagsan baraarujin fiican hadda barnaamijka noo bilaabanaya marka hadda barnaamijka noo bilaaban doona daawadayaal waa qaybta labaad ani af Soomaali walba ku faraxsanahay af Soomaali hadda marka aan iskaga hadlaa
magacayga waa Jahan Maxamed waxaan ahay dhakhtarad ka shaqeyso Downridge waxaan ku koray Tensta waxaan soo degnay 94 marka Basul School ayaan dhigtay Houston School ayaan soo dhigtay kadibna University waxaan ka dhigtay Yokospani jaamacadana waxaan ka baxay Ingiriiska haddana waxaan ka shaqeeyaa Downridge qaybta oo gynecology iyo fostering waa labada qaybood dumarka caafimaadka dumarka ku saabsan waxaan sameynayaa takhasuskayga estela kale waxaan hadda xirtay 2 sano ibar kadibna hadda maama noqday insha Allah markii kadib ayaan ku noqon doonaa aan dhameysan doonaa takhasuskayga gynecology iyo fostering bood hoo motiveerat bay waa su'aashii maxay dhiirigeliyay mar walba kulbu aad baan u xiiseenayay inaan fahmo jirkiisa u shaqeynayo waxaan markaan iskoolka dhiganayo waxaan aad u jeclaa bay ahayd kadibna waxaan siyaabo kala duwan ayaan u baran kartaa macalin aan noqon kartaa maybe shimiya yani waxyaalo kala duwan baa jirka ka samaysan aad rabtid inaad yani baratid laakiin dhakhtar waxaan isiri adduunka meel walba aad tagtid waa lagaaga baahan yahay mustaqbalkaygana inaan ku dhameysto isdhahay inaan sii joogayo runtii waddankaan inkastoo la dareemi karo in Swedish leeyahay maadaama waddan kale maba kusoo korin laakiin dhulkeena ma ahan marka taasaa igu dhiirigelisay inaan dhakhtar noqdo taada kalena waxaa waaye bini aadana caawinaysaa marka shaqana way ku tahay آخرنا وش قيسنا هذه نية على تحي نية صحة أو في سبيل الله أدو سنين يصير مركا وأنا بقنع سنة هاي وأنا بفرح سنة هاي إن نقضي تختار ما أنا أهان أذانا حد مع ما أهي وحيانا بدن اسمها سكرتا أدو شقي سنة سو ما أهان شقاء اسبه يصير أما شقيني وحكى المقبسين كرتيد ما أهان يعني وفرصة بدنا كنا جرو bulshada aad qaban kartid adoo dhakhtar adoo dumar adoo xaasam adoo maamo si kasta noqotay marka intaas ku dhaanaya السلام عليكم ورحمة الله وبركاته runtii aan masdheheen maanta af Swedish af Soomaaliya ku qodbeen doontaa laakiin af Soomaaliga tabaankaas kaga hadlaya اوكي هروبتي مقعي وانا عيوم محمود شيخ تاريخ اهانا داس كشيكيو سويدن waxaa imaanay sagaashameeyadii dhaxbartankeed doonkii samarkaas maraya kadibna Tensta u soo goornay Green School inta ka dambeeyay markii gymnasium la codsanayna waxaa rabay Tensta laftarkeedii aan ka dhigto kadibna gymnasium sanadka ugu dambeeyay سؤال بدن أو أنا وجين أسويدي محل قندم تفهمتيدن محل بتنا برتيد مك كنتي قان هاد أدبل إن جارا وحا دون استنا نقطة مستقبلك ودمتي بحسده أنا بيولوجيا وجعش ما دون كمتك أنا وفي مع متك أوجع لا هاي ما دام تشكي بناني كسابسينها بناني إنه الشقي ما جعلها كدي بنوح أصلها دكتور لما وح وفي عن ساقامس وح أنا جعلها كدي أنا بسيب وناك وناك يجون جامعات كدي جنا وطن كله مكا وطن كساعة كصابرته وحن كصابر نجيبيه لبصني بكار سويدن markaan kusoo laabtane waxaa bilaa wax la dhaho mini arte rotation amal af Soomaali ahaan wax lagu sheegaa qaan laakiin isbitaalka meel qaybo ka mid ka shaqeynaysa haddana waxaa bilaabay takhasuska cilmiga guud caafimaadka oo almen medicine la dhaho oo hadda muddo sanad camal sameynaya
السلام عليكم بتسير بصرف حقولي أصلا التصديق hör man mig bättre nu? Ja. Jag heter Nimha Abduqadir. Jag är från Örebro, uppvuxen grundskolan och gymnasiet. Under min tid i gymnasiet faktiskt så var jag intresserad av labb. Så jag sökte till biomedicinsk analytiker i 3 år i Örebro. Under min andra år så blev jag väldigt uttråkad. Jag började se att det här var ingenting för mig. Min storebror var då i Rumänien och pluggade till läkare. Så jag tänkte att jag skulle också åka dit och prova. Men min mamma tyckte att jag skulle fortsätta. Så jag avslutade de 3 åren som biomedicinsk analytiker. 2010 så åkte jag till Rumänien. Jag var där i 3 år. I en stad som heter Târgu-Mureș. Jag vet inte om några känner till. Sen 3:e året där så bytte jag faktiskt till Danmark. Det blev dels närmare Sverige. Jag fick kämpa med språket i 6 månader. Det danska grötiga språket, men det är inte omöjligt. Det låter ganska enkelt, men vägen dit var faktiskt väldigt kämpigt. Sen gjorde jag min AT där i Danmark, så jag flyttade tillbaka till Sverige i september. Så jag flyttade hit i Sverige, jag var ledig i 3 månader. Sen började jag söka, då tänkte jag, vad ska jag söka? Jag tänkte som ung läkare så är det bra att man kan lite inom ganska breda områden. Så jag hamnade på akutmottagning i Karolinska Solna här. Så jag har jobbat nu där i snart 6 månader. Jag glömde fråga, vad är det som motiverade mig att bli läkare? Jag visste redan att jag ville bli någonting inom vården, men jag var inte egentligen intresserad av att bli läkare till att börja med. Jag var mer intresserad av att bli labbmedicin, så jag fick prova, och då såg jag liksom att jag blev väldigt mycket begränsad från det jag ville göra, och sen därifrån tänkte jag, nej, jag ska fortsätta bli läkare. السلام عليكم. السلام عليكم. ما أنتم حيوان هجيب سنة عد قطرة يا شباب. عد كي عادي سامها. مقعي هو مهن هو شيخ. محنا هاي دكتور. وتحدد التخصص اللي سكجر أستيلاك رمضها. وقيمت علم المديسين. أما عفمات الجود. قدومه إبراهيم دايما كل هاي أنت فوضى الأشياء، لكن وحوم لنا دكتور نبغى واوي وأنت كموضة دلالي. aniga Soomaaliya ku dhashay maalin Sorbo iyo Boeing kulligood dadka xabalena waa iga weyn marka qof meeshan ku dhashay malahan laakiin inta ku soo wada qornay oo aniga kaleeto aniga saali barjira wadankan imaaday marka galaasoo dhan waxaa ka bilaabo usbushkan oo gulliga marka gulliga ka baxana champinga dhigta oo ilaa شامبي وارسع عند والي حري انت على حري كو ودبي كبحي انا بقى كبعد ان تنستا يمناسي مركا نول شيء تنستا كم بحمل او تنستا ما مركا ودك معنا نتفهم نتسكس او سوغور الى حدا جوغا حدا يجلس تكنا هي لا كواس حافظ العسكري مركا تنستا مرمر وحو كفت مع الجامعه لها تنستا بدينا هاي لكن جامعه waxa ka bartay dibadda gaar ahaan wadanka Hungary waxay u dhiirgelin horta sidoo dhakhtar inaan noqdo ilaa markii waliga waa iska jeclaan dhakhtarnimada Soomaaliya hadaan xawaayo zaid ugu dambeeyna qofka dhakhtar noqdo marka laga yaabaa aniga yar si oo afahmin inay programmee waa dhici kartaa laakiin aniga waxa hadda jeclaan inaan iga imaatay waxa aan nafsadayda jeclaaday inay tahay sababtoo ah iskoolka haddaan ka dhignay gulliga marmar macluumaadka wuxuu diiday maxaarta inay noqoto dhow maxaa noqonay markaas aan xadhi jiray dhakhtar ilmaha la qaar waxa laga yaabaa moogi gadana ka doorna laakiin markaas dhakhtar aan jiray markaas macluumaadka qaar isku dayay in xoga fikir ka bedelaan ay ku dhahaan dhakhtarna camal gaari kartid oo toos kuma sheegaan laakiin si kale wax kale inay
kuwa dadbaan marka gymnasiana markaa ka baxay aa ogaaday Sweden soo galay saaxiibadeeda ay ugu taliyaan oo dhahan intaasoo sano waxa ku haysa dhaqtaraan qoonaan saas ma uga haray orda ka xigtada aan dibadda la aaday marka dibadda saas ku aaday aniga markuu wiil saaxiibanahay asraacnay asaga hasan iga horeeyay wiilkaana wiil oo dhaqtarnimo xiisaana ma waahan laakiin Bangladesh oo ka imaaday marka saas ku aaday ana marka hal sana ka haray oo ka haray oo xirnay marka marmarsiya ka dhigtay laakiin sabat oo la iska dhahay marka sabat oo markuu dhamaaday aan go'aansaday inaan dibadda aado aniga rabin maadaama qofka meesha u barto oo kusoo kale ma jecel inuu ka tago waddan cusub keliga iyo Afrikaan madow Swedish marka xogaa ugu adkaad laakiin haddana waaga soo shaqeynaya meesha looga kulunda medical ka soo shaqeeya waxaa go'aansaday dhakhtarnimo inaan waxay ka soo gaaro inaan isku dayo haddii xataa intaan tago yani ka bixi waayo at least marka laagarkay soo noqdo waxaa dhihi karaa dhakhtarnimada waxaa jeclay ahayd waa isku dayay waa ka soo bixi waayey hadduu anigu yani oo ku qanacsan yani nolosheeda iska xamaalinahay laakiin nolosha in la shaqeeyo ma fiicno qofka inuu muxuu ahay wax intuu uu sameeyay haduna ka shaqeeyo waaga yaray ina aadaafana marka horta waxa igu qasbay ama oo igu dhiirigeliy in aan taas aad alxamdulillah maanta lagu guuleystay haddana waxa waa takhasuskay kalbar oo imara oo 2 sano marka bacda soo dhamaan insha Allah hamiga kulliina wada jirno waa wadanka waxaan u qabanay mustaqbalka xaga tagan oo hadda waa taga wadanka Orman oo dalxiis ahaan marka in soo baxa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وسلامتي دمان مقعيد وأحمد داود علي وحن كشاقيا كارلينسكا مشتت سكولكوس وحن وحبرشتة سودمي اللي سنة كهر هذا تخصصك وحن وضع بارتانك ورنها وكينيس فيسيولوجيا لها إن شاء الله وحن رجينا سنة قدام بينا عندنا يو سبيشاليست نقطة marka waxaan ka mid ahay dhalinyarada oo tennis ku soo koray wadanka waxaan soo degnay 1998 waxaan soo degnay guryahan Paran Yusufka la dhahayo sandas tennis rinkibi iyo lista waxaan meel walba waan degay dhalinyarada waxaan ka mid ahay markay yaraayeen soolka muslimka dhiganayay iskoolka muslimka dhiganayay waxa magac waxa la yiraahdaa al-Law al-Islami School marka 2 sano dhigtay kabacdi waxaan bilaabay Gulinga School meel walba waan ka dhigay tennis out for racing plan training grand foreign plan Gulinga plan meel walba dhigay rinkibi waan dhigay bread plan aan leeyahay Yulistana waan dhigay marka waxaan kamid ahaa dhalinyarada tennis rinkibi Yulist ku soo wareegay oo ku soo barbaaray Gulinga School aan ka baxay haddana waxaan bilaabay Champion School oo hadda mahadaysan dhiganay dhalinyarada ugu dambeeyay la xirnaan kamid ahay muddo shmoolna halkaas aan kusoo dhiganay markii alxamdulillah tennis waan kusoo barbaaray haddana dhakhtar aan noqday laakiin jidkan dhakhtarnimada ku noqday rafaad ahayd horta wadankan waa in la ogaado cunsurnimo badan jirto deyntu uu meeyid laakiin cunsurnimo waa jirtaa waxaana muhiim in la socdo cunsurnimada inay jirto qof kasta ii weydiiyay waxaan dhahaa wadankan ha ka sugin qof inuu ku imaado adigoo fadhisid oo wax ku siiyo waana inaan ogaataa qof madow ah tahay qof muslim ah tahay qof oo wadan kale ka imaada tahay ma hawada monga soo kale muuqsay marka waxaa muhiim in waxaas ogaataan waxaan xasuustaa 14 jeer markaan ahay qiso waxa ka dhacday waxaan haystay macallin oo kaalin champion macallin ahayd waxa ay dhahday kamid ahayd waxay ahayd oo Allah bilaa kale la iska bilistaada Ahmed 14 jeer ahay so they make us an soccer oo aad maqli doontiin waxa kale inta aan maqlay oo macallimada dhahday waxaan nahay natural dhigana waxay dhahday natural badan oo Ahmed ka bixi kartid duwe bro iyo baba dina hinder so я تكلم iska briefud mechanic waxay inta anigu sideed dhigana ay in beka in khadi noos food mechanic in heel beka motor fura motor xiraay laakiin way ifnad waxaan ogaaday baboxyad IKEA ka imaadaan xiri kari motor samreera marka waa inuu greenana skoolka waan ka baxay shampinga
iskool kaleetaan bilaabay rafaad kaleetaa laga arkay oo badan waxaa arkaya cunsurinimo badan inaad ku aragtid very subtiila cunsurinimo aad ogeen laakiin markaa ka fikirtid aad ogtaa cunsurinimo tahay waxaa dhacayso macalinka caawimaad u baahantaa gacanta kor u taagaya ee ardayda kale dhan u tagaa adaa ugu dambeeya markaas wuxuu ku leeyahay loving them so cunsurinimo badanaa ka dhacaya waxaa dhici karto MVG inaad u baahan tahay adeeg haysatid oo macalinka dhahayd ku komedeysay ama endpoint ay maqan wiilka MVG oo aan MVG ma helin macalinka wuxuu ku leeyahay Ahmed Tuvari vad du tvungna att dra gränsen någonstans och ofta blir det precis framför dig marka anayna waxaan kamid ahay dhalinyarada tennis wax badan degneed folk blir jätteförvånad markaan ahaa mitt första jobb var när jag var 20 år markaas ay ugu horeyso horta arbetslivet anagoo galo shaqo badan waan dalbaday laakiin waa heli waaye inta magaca qofkas waxaa maqlay maan shaqo job shaqo ma helaysa maayo magacaada Axmed Daawud Cali laakiin isaat waxaan soo dhalinyaro badan oo shaqo heysay laakiin aan dadka waxaan kamid ahay oo shaqo 20 sano jir 20 jir aan shaqada ugu horeysa helahay marka shaqo la'aan waxay i geysay inaan destan garay inaan lugta aado marka lugta waxay taxtaa ma ogeen iska magaciisa iska saxayay demonstrating waxa la military aan noqonay waxa la diray Buddha waxaan weydiiyay Buddha inta ku yaala waxay dhahan anti mahari from way igi laabin inay sheegaan de anti ma free tareen saaray tareen toddoba saac waa saaray waxay igi meel jakirna ku yeeshay they sound like this waxaan arkay waxaan wili arkay laakiin damaanada effort hada sana ku maqnaay banaankaas barafka minishifeen aan teenda aan dhaxjiifay markaas aan daaray wallahi meesha maxay keenay talo wax badan aan arkay mas'uuliyiin badan oo arkay laakiin marka meeshaas ka baxay shaqalaan ahayd waxay badan marka hamigeedu wax iska ahayd taqtarna noqdo wax iska jeclahay laakiin inaan gaari karo ma ogeyn marka wax ka dhacay noloshayda waxa waaye shaqadaas aan raadinayay waxaan iska ogaaday shaqo la'aan inaan ahay shuudi waraan ahay waxaa dhici jirta samaro 2 bilood 3 bilood 300 inay jeebkeeda ku jirta iska socday lacag la'aan marka waan ka dhaftay waxaan dhahay dad badan aan weydiiyay shaqadee aan dalbaan maxaan barani karaa oo haddaan barto aan ogahay inaan shaqo inaan dalbo u baahneen laakiin dadka is waraadsanayaan weligay CV ma qori rabi weligay ma rabin waxaan rabaa inaan wax barto oo aan ogahay mar walbo meel walbo inaan shaqo ka heli karo oona qof i hor istaagi karin marka qofaa wuxuu dhahay takhtarnimo waaye saas miyaan dhahay tigidkaas goosta Poland iska saasaan ku bilaabay takhtarnimadeydii marka Poland aan 6 sano ka dhigtay alxamdulillah ka bacdi loo Norway isla marka shaqo ka helay 2 sano gudihiisa hadda Sweden aan imaaday Sweden waxaan ku helay shaqo gudihiisa oo endeka marka dibasoofa midaysa marka wax badan aan idin sheegi karaa cunsurinimo badan laakiin waxaa dhihi karaa wadankan ugu imaanin inaan natiijo dheer helno oo aan shaqo heer kor aan gaarno dadka wadankan dad inaan booska ku caririno marka waxaad ogaatay qof inuu jaaniskii siinayeen laakiin albaabka lagu jibiyaa laakiin mar hadda soo gashiin waxaa ogtihiin qof inuu idiga riixi karin shaqo weyn inay heli kartiin oo qof idin hor istaagi karin intaas ku soo koobaa insha Allah waxyar leeyahay lawasayar intaan hadlay waxa laga yaabaa dadka qaar inay saddex oo dadka dhaqaatiir meesha fadhiyo waa qatar ba genius waa lama gaari karo laakiin waxa ogaatiin in Soomaali wadanahay anakan idinkaan inaan si brom dadkii qaar inta ku dhasheen oo taagis dhigteen anaga waxa waaye Swedish rasmi ila ka gaaro iskushtan mustacmal wahda midda kale to عندنا بريز المصري من سوبر باستو سيدنا كلا دان دريد إلي دينا ملاس المدقين أو فرور كان اللي جونا وموتوين كان يو حبلا دعاية وأنا اللي دقينا مركا هو قاعدنا إن أنا هيدت أو يعني مسكح في عام لا ده عكس ما عادي أنا لكن واحد دتك العود ونحاي وحواي همينا يعني ستوس وأبرني أرعني يعني عقلي زائد مليون